السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogtaan. waxaan idin leeyahay sanad wanaagsan. caawa waa kowdii January 2017. ilaahay sanadkan sanadkiisa ha inagu gaarsiiyo caafimaad. sanadkanna ha inooga dhigo mid aynu ka guurno dulmi oo dawladnimo iyo midnimo Soomaaliyeed u guurno. ummadan Soomaaliyeedna ilaahay waxaan uga baryaynaa abaarta inaga saaro. waxaan caawa ku duubayaa halkan clip yar oo u duubayo isimada dhulbahante. waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi awalan dhammaantood meel ay joogaanba. waxaan doonayaa inaan ka hadlo shirkii ugu dambeeyay hadda ma shalay la sameeyay oo lagu soo gabagabeeyay muxuu ahaayay higlada kaasoo hadalkaygan uu daba socdo mid hadda lagu sameeyay last year inuu ahaa November October meelahaas isagana lagu sameeyay. intaanan u guda gelin dulucda fiidiyowgayga waxaan rabaa inaan idhaahdo isinimo horta ma wax lagu dhashaa mise waa waxay qofka ku soo dega maya waa waxay umadi idmato oo ay u idmato siiso muxuu qof ninkay u garato masiirka ummadda inuu ka talinayo waa title ay umadi bixisay yacni SSC dadka deganay waxay hidde iyo dhaqan dheer u leeyihiin inay leeyihiin cuqaal ay lahaayeen wanaagsan oo ka baawar weyn mid maamul dawladeed burburkiisa ku dhacay ummadda gobolada degan SSC marka la yiraahdo doorkeebay ka cayaareen horta cuqaasha dhulbahante. marka hore waxaan siinay magacii loogu walqalay magac ka weyn oo ka qurux badan oo ka baawar weyn oo baan isnin kasto aanu leenahay uu leeyahay sida garaad hebel ugaas hebel caaqil hebel nabadoon hebel. magacii hooyadii yaabihiba ugu walqaleen taytalka ummadda. taytalka markaan bixinaynana caanaha geeleena iyo codkeena karaamaysan baynu saarnaa. halkeebay ina dhigeen markii burburka iyo maanta labada layna wadaagay sida sandwichka dhexda layna geliyay ee burburkeena iyo laga taliyay inaynaan soo kicin. halkeebay doorkeebay ka cayaareen. waxay ka cayaareen anigu aqligayga markaan ku cabiray in badanna aan eegay waxa ay ka hadlaan iyo shirarka ay qabtaan sida ay labadaas inoogu kala safan yihiin bay iyaguna ula kala safan yihiin sida labada maamul inoo dibin daabiyayaan bay iyaguna laba qaybood oo la kala safan noqdeen. waxa weeyaan maanta ma jiro isim ka talinaya masiirka ummadda reer SSC ee halka degan haba yaraatee shir maalintay qabtaan ay caalaqaan waxay iyagu leeyihiin ama waxa guriyahooda ay yaalana waa mar ay taageerayaan guri reer kale ama maamul reer kale. hadda last year hadda shirkii ay sameeyeen higlada ku qabteen waxay ku baaqeen inay yihiin maamul reer kale inay taageersan yihiin. waxay taasi dhaxal siisay ummadda degta SSC iyagoo oo nool oo taagan in rag kale sheegto masiirkooda oo ay ka gaadhaan go'aan oo yiraahdaan xildhibaanada gobolada SSC laga leeyahay annaga ayaa soo xulayna yaa gacanta u geliyay oo siiyay baawarka inta la eg waa isimada dhulbahante. waxa weeyaan hadday caalaqaan waxooda shalay geed la wada fadhiyay ku dhiseen maantana xaq bay u leeyihiin inay ka qaadaan oo yiraahdaan saad wuxuu wadaan waa khalad oo hadduu khalad jiro ay khalad ka saxaan. laakiin inay iyagoo reero kale codkood ku hadlayo intay meel fadhiistaan qabtaan wax ka naga farxinaya iyo waxaa nagu soo jiidanaysaan midna maaha. heer waxaadna gaarsiiseen aad ka xidheen gabdhaha dhulbahanta kaftankii aad ka xidheen isimadayado. heer waxaadna gaarsiiseen aad noqoteen ka tagteen hawshiinii dermooyinka aad ku fadhidaan maanta hoosta ayay dhiig ku leeyihiin. waxaad xaq u leedihiin maanta shaqadiinii inaad ka seexateen kaad xaq u lahaydeen baad ka seexateen midaydaan xaq u lahayna gacanta kula jirtaan. taleex laba reer oo dhulbahantaa baa isku dilay oo walaalo nuur axmeda ilaa haddana meel maydaan ku tiirin hawshoodii mana aydan heli waayin halkay isku hayaana waad hagranaysaan. kii eelka dhigay ee shalayba laayay ragga iyaga ku laayay qorigiisa iyo rasaastiisa isagoo maamul beena huwan taleex intuu ugu yimid magiinada yada xabadda la dhacay idinkaa la safan dee waayo dulmiga uu dhigay ninka adigu aad taageersan tahayna ma rabtid adigu inaad xallishid. laascaanood duleedkeeda waa laba reer isku haysataa oo ilaa iyo hadda maanta doox ku sugan oo laba reer oo dhulbahanta ah maydaan heli waayin halkay isku hayaana waad hagranaysaan. iyagana dhinaca kale kuwiina ka safan ayaa dee maanta maamulka kale ee hubka isugu dhiibayaynu wada ognahay baaqaad la safan tihiin taana ma rabtaan inaad xallishaan. haddaad doonaysaan maanta masiirka ummadda dhulbahanta inaad ka hadashaan oo meel ku tiirisaan oo ma ka hadashaan kuwii idin sheeganayay idinkoo taagan
idin matalayay masiirka ummadda dhulbahanta iyagoon dhulbahanta ahayn anaga xulaya la xildhibaanadoodaanu xulaynaa miyaa xaaqanteen idinku idinmee qalinka idinka ugu jiiday qaarkiin wayba naga guureenoo reero kale la degan yihiin masiirka aad shalay sheegateen iyo codkaa soo saarteen maantana idinka tiinii idinku aa lahaydeen weeyaane midaad annaga ummadda dhulbahante ama SSC ugu talinaysaan gobolada dadka degan adeerayaal maaha waxaad maanta na gaarsiiseen inaad kaftankii naga xidhaan haddaanu nahay gabdhaha dhulbahante ma jira isin Soomaaliyeed oo maalin walba intuu meel shir ku qabto cid kale taageersan idinka mooyaane ma jiro isin Soomaaliyeed oo ka guuraba dadkiisa iyo meeshay deganaayeen oo reero kale geedkood u waaban yahay ma jiro isin Soomaaliyeed oo maanta intuu wixiisa caalaqo aan sixine mid kale oo reero kale leeyihiin u sacabtuma idinkiina shalay higlada ku jiray horta xagee ka kala timaadeen qaarkiina Hargeysa ka timaadeen qaarkiina Garowe ka timaadeen oo saddexda gobolaad ka soo kala jeedaan mayagaaba nabad sal lagu wada fadhiya midkiina buuhoodla kiina ka yimid iyo kiina ka yimid Hargeysa iyo kiina ka yimid Garowe waxba maynaga waxba ina wada kulmiyaanba dhulka yaga waxaad ka dhigteen meel madow oo muxuu ahaayay aan horumar iyo waxba aanay lahayn waayo sabtan maantana hadii heshiiskani dhaco waxaad aaminsan tihiin inaad idinku arrintiinu ay ku ururi doonto inaad reerihiinii kala celisaan marka intaanay taasi dhicin waa inaad ka hortagtaan laakiin anaga maslaxad nooma wadaan maslaxadaad noo wadeen horaanu idinka weyne ummadda dhulbahantana waxaan u sheegayaa inaga ayaa garaadadeena iyo cuqaasheena akramanay oo sharafnay oo magaca taytalkee mid walba magaciisa ka horeeya siinay laakiin way inagu adagtay inaynu la xisaabtano oo nidhaahno xageena dhigteen anagu way idin akramano way idin sharafno magac baanu idin bixinay xageenagu ogeydeen dadkii xageebaa ku ogeydeen dalkii xageebaa ku ogeydeen ma anagaad noo tihiin isimo mise waxa u tihiin ummad reero kale waxaadna ogaataan taariikhda baa geli doontaan laakiin maanta tad lagu jiro waa laga bixi doonaa maamulka shalayta waxaad soo saarteen inuu wada hadalkan dhex maray Khaatume iyo Somaliland uu yahay mid aan idinku aan leedin kala tashan oo goorma soo saarayseen ka soo saarayseen Puntland dulmigay ku haysay gobolada SSC ay lahayd shalay baan xulaya ama ha ahaadaan xaq ama ha ahaadaan xaq darree maxaa uga soo saari weydeen ummadda dhulbahanta hadaa masiirkeeda wadaan oo u oran weydeen hallow annaga joognay sad masiirka iyaga annaga u soo xuli kartaan hadaa annaga wax noo wadaan ummadda dhulbahanta wax u wadaan waa isimadaan weydiinaya su'aashaas waxa weeyaan idinka noo kaday halka waxa dhigay maanta bulshada reer SSC waa siyaasigeeda oo daacad ahayn oo kii wax loo dhiibtaaba ciribtiisa qaniino iyo idinka oo noogu darsamay waa hal laba midigood la dhangaday hal dhinacna uma fayooba laakiin rabbi subhanahu wa ta'ala bay bulshadani ku tiirsan tahay mar bayna ka bixi doontaa jawaabta kale aan su'aasha kale ee aan idin soo halkan idin soo marinaya waxay tahay oo aan idin leeyahay waagi baryaakisha lu sii wadacayaaye waliba waxyo uu dheeriyo waafiya jire wareer baa baryahan muuqda iyo waali caadiye warwarkiyo walaacay haya waygu weyn yahay waxa loo walqalay maanta waa waxaan la eegayni waran kaaga daran weer xunu yiri walaalkaay warkan shalayta wow iyo ka yimid quraacdi waadeere wixii lay higlada wiila tagay soo walhinayeene wari weeye sheekada tan ay maanta wariyeene warqadahan la soo qorayna waa naga wareersheene waayeel qaldamay baa jiriyo xaajo waaliyahay wiil iyo sidii inan yar bay taladii weecsheene weydeeyo reeraha kuwii loo wakiishadaye wadeecawday teeni ninkaan helin warkeedowe wadeecawday teeni ninkaan helin warkeedowe weydaarta marinkii wacnaa iyo wanaagii walwaal iyo waxay kula dhaceen tagogi waaheene waraabuhu ka dhereg oo wata haada loo waday waliimaystayaal oo walle waydan aragnaaye wajigoodu qaar u gubto weeciyaa jire weecaanta qaar baa ka jecel roobka kii wacane waxar laguma aamino ragga idinla waaweyne waxar laguma aamino ragga idinla waaweyne wacadkaad gashaan iyo kitaab mara wallaahayda weydaaristiis iyo intuu gogasho weydaarto weer raaca reer kale intuu yaraha wiideeyo isagoo wax kale eegayo weer xidhaad arage weydhaamihaan qolo kalo weyla raac noqoyi qaar bay la weyn tahay harsiga uu waaba reer kale
qaar buu wadkii dili lahaa yahay walaalkoodi waxa jira qaar wisiisiya anigu maalintan wine ah oo qaar bay igu wiirsada markaan yaraha wiiqmaaye maaweelo ruuxan qalbiga waafi ka ahaanin ma waantoobo jeeru waa bariyo helo wadkiisiiye ma weynaado jeeru qabriga wiiqa loo dhiga ah waayihii hore soo marana kuma wax qaataane wan weyni ilaa la gowraco indhuhu kor uma weecdaane war waa yaabay aniguye maxaa wiiqay taladeena waa yaabay aniguye maxaa wiiqay taladeena wax kastoo wanaagii rag bay weyrax geliyaane waxyigii rabbigu soo dejiyo weyne amarkiisa waysadu rag bay kaga jabtaa weer ilaah yidhiye watiin iyo rag bay waran ku yiin weylin iyo ruune waddadaa muuqanaysee wacane aan hayno waxa jira duul wadeecaysan oo aanay waafi la ahaane waxaan idin leeyahay dhulbahantow tashada cid idiin talisa ma haysaane tashada yaanay taladu idinkaga dhegin siyaasi baa yidhi hadduu yidhina ilaah baa siduu ilaah yidhi baynu ku raacna yaanay idinkaga dhegin waxa yidhi isimadeenniya waynu ku raacnay halkaa waxa ina dhigay waa taas wax laynoo soo wadaana ma jirto والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.